safiirkii hore Mareykanka ee shaqada laga eriyay una joogtay dalka Ukraine ayaa la filayaa inay hortimaado aqalka wakiilada ee maamulka waa madaxweyne Donald Trump si markaasi su'aalo looga weydiiyo waxa ay ka ogtahay arrinta ku salaysan su'aalaha la rabo in lagu ogaado xilka xayuubinta madaxweynaha. William Taylor oo ah safiirkii hore Mareykanka u joogay Ukraine iyo George Kent oo isna ah sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyagana laftooda la dhageysan doonaa. Dhammaan saddexda diblomaasi ayaa horey loogu wareystay qol albaabada ay u xiran yihiin arrimo ku salaysan su'aalo weydiinta madaxweyne Trump iyo sidoo kale cadaadiska uu saaray in shaqada ay ka tagto gabadhaasi diblomaasiga ahayd iyo baaritaanada lagu hayo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalkan Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale arrinka ku salaysan su'aalaha lagu ogaanayo sida doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee sanadkii 2016 markii ay dhacday la sheegay in wax isdabamarin ay dhacday. wiil 16 jira ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay ardaydii la dhiganaysay dugsiga halkaasi oo ay ku dhinteen 2 arday 3 kalena dhaawac soo gaadhay. wiilkan dhalinyarada ah ayaa shalay khamiistii kuna beegnayd maalintii dhalashadiisa intuu tegay dugsigii wax ka dhiganayay rasaas ooda kaga qaaday ardaydii kale. xabadii ugu dambaysayna isaga ayaa madaxa isaga dhuftay. gabadh 16 jira iyo wiil 14 jira ayaa weerarkaasi ku dhintay. waxaa kaloo dhaawac soo gaadhay 3 arday oo kala ahaa gabadh 14 jira, gabadh kaloo 15 jira iyo wiil 14 jira. wiilka weerarka soo qaaday ayaa isaga laftiisa xaalad halisa ku jiray markii goobta laga qaaday. ciidamada ammaanku weli wax faahfaahin dheeraada kamay bixin aqoonsiga wiilkaasi. dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa shalay sheegay inay heshiis ka gaareen sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada wadan. waxay sheegeen labada dowladood inay muwaadiniintooda u sahlayaan fiisayaasha iyo in toddobaad kadib duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi ay toos isugu duulaan iyadoo aan la marin wajeer. haddaba arrintan ayaan waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo kuwa Mareykanka. waa horumar fiican weeye oo waliba xagga diblomaasiyadda ah. run ahaantiina waxay aada isugu soo dhaweynaysaa labada dal sababtoo ah Nairobi iyo Muqdisho oo hal saac isu jira in wajeer la maro oo lagugu baaro oo aan qofka Soomaaliga ahi aanu dalku gal dalka gudihiisa markuu soo degto ka heli karin oo runtii aad iyo aad bay u cadilaysay dadka Soomaalida ah. waana u fiican tahay xagga maaragtay inay dib u soo celiyaan kalsoonidii iyo wada shaqayntii. marka waa tallaabo runtii aad u badan weeye. Soomaalida ama ganacsato ha ahaato ama siyaasiyiinta ha ahaato ama shacbiga ha ahaatee guud ahaan dan weyn baa ugu jirta. iyagana waxaan rajaynaynaa in sidoo kale iyaga kaliya viisa ma baxshaan, inaguba viisa waa bixin doonaa. Soomaalidu kolley waa bixisaaya iyagana inay u fududaato sidoo kale ay Muqdisho u imaan karaan si toosa iyagoon ama meelo kale lagu soo baarin ama aan dhib kale loo geysan. waa maxay sababta ay muhiim ugu ahayd Kenya in ay dhowr jeer soo celiso arrinta ku saabsan wajeer in la soo maro? heshiiskan ka horreeyey oo ay gaareen ayaa jiray labada madaxweyne 2017 oo ahayd wajeer in laga wareejiyo. haddana Kenya dib ay u soo celisay. maxay tahay ujeedada Kenya ay marna u leedahay wajeer la soo maro marna u leedahay ma toos loo yimaado? laba arrimood baan u malaynayaa inay sal u yihiin. mid waa markii horeba arrintu siday ku dhalatay oo xagga amniga maadaama dowlad xoog badan aanay Soomaaliya ka jirin in Kenya ay aad u dhowranaysay dadka soo galiya iyo oo meel fog lagu soo baaro intii dadku uu toos u soo gali lahaa Nairobi. taas waxaan u malaynayaa xagga amniga ay ahayd oo fikirkoo dhan markii horeba ay ku timid. markii dambese waxay noqotay baad moodaa arrin loo isticmaalo cadaadis xagga siyaasadda iyo in dadka Soomaalida ah si uun loogu cadibo oo loo tuso inay faa'iido badan oo ay Kenya ku haystaan ay yaraanayso haddii ay siyaasadaha iyo danaha ay ka leedahay Kenya aanay Soomaaliya ka helin. kulamadii ugu dambeeyey ee madaxda Soomaalida iyo Kenya waxaa mar walba hadhaynayay arrinta muranka badda. madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrintaa taabtay wuxuuna yidhi uu u cadeeyay dowladda Kenya in muranka baddu ama arrinta ICJ hortaala inaysan saameyn doonin, aysan ahayn inay saamayso xiriirka labada wadan. laakiin Kenya war-saxaafadeedkii ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu muujiyey inuu doonayo si labada wadanba ay ku wada qanacsan yihiin in loo xaliyo arrintaas. maxaad u fasiratay adiga?
waxaan u fasirtay arrinta badda in soomaalida mowqifkeeduna uu yahay sidii caadiga ahayd arrintaas in loo daayo I C J iyo maxkamadda loo daayo oo aan haddeer la farafarayn wixii kale oo calaaqaad ah oo diblomaasiyad iyo xiriir wanaagsan oo si deris ahna deris wanaagga iyo walaalnimada iyo wadajirka laga shaqeeyana aada moodo inay meel isla dhigeen oo la yiri bal arrintaasi yaanay hadda ina ka carqaladeen xiriirada iyo danaha kale oo waaweyn oo ina ka dhexeeya si haddaad u fiirisid waxaad moodaa madaxweynaha Kenya inuu weliba aad iyo aad ugu dhiiranaa in uu ku adkaysto viisayaasha iyo dalkugalka iyo diblomaasiyada iyo xiriirka iyo waxyaabahaas oo dhan inay ka wada shaqeeyaan waxa soo qaaday oo kaliya waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo isagu yiri arrintaas aad moodo inuu leeyahay arrintaasi hadda taaban mayno wada hadalkana ka mid ma aha hase yeeshee Mareykanka waxay yiraahdaan qofku hawl uusan awood u lahayn markuu qaban waayo waxay yiraahdaan ama uu isku dayo inuu qabto wuxuusan awoodeed lahayn waxay yiraahdaan waxaasi waa above their pay grade mushaharkiisuba qofka ma dhama marka madaxweyne Farmaajo iyo shakhsiyan ama ha ahaato ama siyaasad ahaan ha ahaatee waa ogyahay inuusan arrinta badda uusan gorgortan cidna kala geli karin marka arrintaasi waa arrin ka weyn isaga weeye saasaan ugu qaatay inaan arrinta badda laga wada hadlin qodob kale oo labada wadanba saameynayo Farmaajo ka hadlay waxay ahayd inuu soo qaado doorka dowladda Kenya ee ciidamada AMISOM joogtaanka ciidamada Kenya AMISOMna su'aalo ayaa la iska weydiiyay bilihii ugu dambeeyay siiba markii muranada siyaasadeed ay soo baxeen maxaad dhihi lahayd qodobkaas isaga maxaad ka dhihi lahayd waxaad moodaa qodobkaas inay dhinacna kalsoonida soo celinteeda iyo u mahadcelinta dadka qaxootiga ah oo ay Kenya hayso iyo siday u taageerayso amniga iyo la dagaalanka al-shabaab iyo argagixisada iyo inuu si gaara ugu mahadcelinayay madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta ugu mahadcelinayay taas waa muuqatay midda kale waxaan ognahay inuu arrimo badan xagga Kismaayo ay Kenya ay ku lahayd marka waxaan tuunsanahay iyadana in ama AMISOM ha ku joogaan ama siyaabo kale siyaasadda lugha ugu lahaadaan arrimaha Jubbaland in arrintaasna in la isla soo qaaday baan tuhmayaa oo taasi ay sal u ahayd inuu uga mahadceliyo xagga joogitaanka AMISOM laakiin aanu ku fogaan oo waxba ka oran khilaafkoodii arrimahaas ku saabsanaa xagga Jubbaland kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia kana faalooda arrimaha caalamka iyo kuwa Mareykanka halka aad ka dhageysanayseena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America